wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Cudurka ayaa maanta si rasmi ah uga daafurtay magaalada Buraya xarunta gobolka Cudurka talaalka ciribtirka cudurka dabaysha oo socon doona muddo 4 cisho. Talaalkani waa mid lagu talaali doono carruurta ku nool gobolka Cudurka iyo degmooyinka Caynaba Odweyne Buuhoodle. Waxa talaalkaasi ka qayb qaadan doona 456 kooxood oo ka shaqeeya talaalka dabaysha, waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cudurka عمر iyo madaxa booliyada Faad Yuusuf waxaana kamid ah hadaladoodii maanta oo ay bishu tahay 14 bisha saddexaad waxa halkan aan ku daafuraynaa talaalkii cudurka dabargoynta dabaysha oo ka soo bilaabmi doona 14 socon doona ilaa 17 dhammaan gobolka Cudurka oo ay ku jiraan degmooyinka Caynabo Buuhoodle Odweyne iyo Burco waxa baxaya 456 tiim kooxood oo tagi doona qof walba gurigiisa iyo meesha uu joogo ugu tagaya waxa la talaalayaa 169 kun oo carruur hadii Ilaahay ka dhigo marka waxaan rajaynaynaa dadweynaha reer Cudurka reer Burco in ay ka faa'iideystaan 4 casho ee talaalka sidaad ogtiin talaalka cudurka dabayshu ma laha wax daawa xalkiisu ama wax qabadkiisu waxa weeyaan oo kaliya in la talaalo qofka waxaan waalidiinta kula talanaynaa goob walba iyo guri walba iyo magaalo meel walba way imanayaan tiimka caafimaadku ee talaalka sida marka inaad ubadka u dhiibtaan haddii aad meel ka tagaysina inaad ilmaha jaar ku baramiso in talaalka lagu siiyo oo fursada laga faa'iideysto. Sidoo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cudurka Dr. Aadan Maxamuud Yuusuf ayaa dhankiisa ka hadlay madashaasi waxaana kamid ah hadaladiisii maanta oo ay bishu tahay 14 bishii saddexaad 2021 waxa aan daah furaynaa xamladii amba campaign-kii ahaa booliyada ama dabaysha xanuunkaas runtii dawo ma laha laakiin wuxuu leeyahay ka hortagaasuna waa 2 dhibcood oo kaliya oo ilmaha yar afka loogu shubo waxa loo baahan yahay hooyo kasta iyo waalid kastaaba inuu ilmihiisa talaalo si aanu hadhowto cudur ama dhimasho oo hadhowto Ilaahay uga badbaadiyo. qaar kamid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Buraya ee xarunta gobolka Cudurka ayaa soo dhaweeyay talaalka cudurka dabaysha waxaana kamid ah hadaladoodii halkan waxa ku soo dhaweeynaya anagoo odayaashii xaafadaha mas'uulka ka ahaa ciidankan alla loo diray talaalka waa soo dhaweynaa baahida ay naga saarayaan waxbaan kala qabanaynaa barnaamijkan talaalka carruurta ee booliyada aad iyo baan u soo dhaweynaynaa wasaaradii hay'adaha la shaqeeyaba dadaalka ay dadaalayaan dhallaanka iyo hooyinka carruurta waan ku hambalyeeynaa. Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco.